warkaygu waa mahadnaq waxaan ku hadlayaa magaca guddiga qabanqaabada shirkan ay abaabushay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyadoo laga duulayo aragtida iyo istiraatiijiyadda ay ka leedahay wasaaradda iyo dowladduba qurba joogta Soomaaliyeed in ay lafdhabar ka yihiin bulshada Soomaaliyeed waa bari shacab lagu qariyo bulshada Soomaaliyeed lafdhabar bay ka yihiin mudane wasiir qurba joogta Soomaaliyeed markii aan aragnay taladii iyo fikradii iyo aragtidii aad soo jeediseen anagoo ka duulayna qaab dhismeedka iyo xoogga iyo xawaaliga ay ku socdaan qurba joogta Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada fildiyadooda kala duwan iyo shaqooyinka ay dalka u hayaan ayaa abaabulkan diyaarinay waxaan rabaa hortaad inaan uga mahadceliyo mudane wasiir gudoomiyaha bangiga IBS oo isagu lafdhabar u ahaa inuu qabsoomo shirkan waxaan rabaa mar labaad inaan hortaad uga mahadceliyo xubnaha guddiga IBS oo nagala shaqeeyay sidoo shirkan u qabsoomi lahaa runtii IBS waxay dareentay in uu qayb ka yihiin qurba joogta Soomaaliyeed maadaama iyagu ganacsi ku jiraan noogana faraduuban yihiin ganacsiga in ay qurba joogta Soomaaliyeed muhiimad gaar ah leedahay mudane wasiir guddigu markuu arkay arrintan xajmiga ay leedahay waxaan goosanay inaan isugu yeerno dhammaan ganacsatada qurba joogta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka inta laga gaaro oo markan iman karta shirkan anoo ku hadlaya magaca guddiga waxaan leeyahay mudane wasiir oo aan soo dhaweynaynaa oo aan raalli ka nahay walaalahay qurba joogta Soomaaliyeed oo dalkooda ku soo laabtay waxay mudan yihiin in la dhiirigeliyo waxay mudan yihiin inay dawladdu garab istaagto waxay mudan yihiin in wax lala qabto waxay mudan yihiin in la appreciate gareeyo waxa ay sameeyeen waxa marxaati ah wixii aad soo aragtay oo goob yar la isugu keenay daqiiqado haddii waqti dheer aan haysan lahayn ama meel inta ka waasacsan la heli lahaa macaarid aad u fara badan oo curuud leh oo la dhex maro oo weyn baa la soo bandhigi lahaa waqtiga oo yar awgeed waxaan leeyahay mudane wasiir adiga iyo madaxda sare ee wasaaradda waxay ahayd maanta halkan inaan isugu keenno dad fara badan oo hay'ado fara badan annagoo aanan ka eegaynin qorshahanagu ma ahayn dhan siyaasadeed wuxuu ahaa in la isugu keeno wasaaradaha beeraha xanaanada xoolaha kalluumaysiga macdanta iyo biyaha teknolojiyada inta meelood oo ay taabanayso fildiyada ay ka ganacsanayaan bulshadan Soomaaliyeed ee qurba joogta ah iyagana waxaan leeyahay dawladdiinni baa idin ogol dadkiinni baa idin ogol dawladdiinni baa idin diyaara abaabul baa laydin wadaa dalka idinka iska leh inaad dalkiina difaacataan dalkiina maalgashataan haddaydan idinku maalgashan oo difaacan oo aydan naftiinna iyo maalkiina u hurin cid idin daafacaysaa ma jiro waxaan kale oo leenahay dhaqaalaha iyo dhismaha runtii aragti dheer markii la fiiriyo wasaaradda arrimaha dibadda istiraatiijiyadeeda waxay ay halkan ka qiyaastay muddana soo waday researchna lagu sameeyey in ganacsatada Soomaaliyeed ay maal gashanayaan dalal shisheeye markan waxaa la gaaray markii Soomaaliya la maal gashan lahaa sidii Soomaaliya loo maal gashan lahaa ay u maal gashan lahaayeen qurba joogta Soomaaliyeed dhiirigelintaas waxaan si gaar ah uga helnay muddo hadda sanad ku dhawaada xogaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda oo fadhiya xamse aadan xaawi oo in badan lagu celceliyay in lagu taliyo qurba joogta Soomaaliyeed inay maal gashadaan dalka hooyo waxaan kaloo rabaa mudane wasiir oo aan anagu soo baarnay oon aragnay inaan hortaada ka sheegno dalalka aan dariska nahay iyo dalalka kaleba ee qurba joogta Soomaaliyeed joogaan waxay ku ganacsadaan qurba joogta Soomaaliyeed baasaboorro kale markii la eego waa fadhiya gudoomiyihii rugta ganacsiga Soomaaliyeed markii Chamber of Commerce laga hadlayo oo aan la hadalno dowladaha kale ama wasaaradaha kale la hadalno oo dhigeena waxaana loo sheegayaa in dad ajnabiya oo madow joogaan dalkan laakiin aan la haynin dad Soomaali ay yihiin dadkan inay yihiin aanay ahayn dad Soomaaliya macnaheedu waxay noqonaysaa xoog doofar lagu eriyay wixii aan tacab gelinay wixii aan gelinay xoolo wixii aan dhulka gelinay waxaan dhulal sheey gashanay waxba kama jiraan waxaan wasiirka arrimaha dibadda rabaa hortiisa inaan ka cadeeyo inaan ka shaqeyno sidii baasaboorrada Soomaaliga ah loogu ganacsan lahaa dalalka kalena u aqbali lahaayeen in baasaboorka Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane wasiir waxay ahayd in kaliya inaan ku hadlo magaca guddiga
aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya marti sharaftana ugu mahadcelinaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.